xal u heli lahaa oo ka hargeysa jooga iyo ka baxsanay dalka gudihiisa jooga iyo kuwa dabadaaba u jawaabi lahaa waa sida suxufiga qiimaha lihi uu u shaqayn lahaa anigoo idinka mahadnaqaya ilaa imaka dacaayadda wanaagsan ama dadaalka faraha badan ee u samayseen dadkii barakacay laakiin waa hal qodob oo ka mid ah taas miyaanay dadku u baahnayn inay ogaadaan iyayse ka sugayaan halkan maxaa gubay soo looma baahno su'aal taagan maaha ma dabbaa samada ka soo dhacay ma mid shil ku yimid buu ahaa ma mid ku talagala buu ahaa cidda laga doonayaa waa hay-adaha dalkeennu ma laha dembi baadhayaal madax bannaan sida dunida qaarkii dalkeennu wuxuu leeyahay dembi baadhayaal dowladda ah iyo dembi baadhayaal saxaafadda ah labadiiba waa laga sugayaa welina loogama jawaabin su-aasha labaad waxa weeye oo dabkani haddii uu kacay 48 saacadood buu socday sidee karti loogu waayay dabka in la baktiyo oo hantida wuxuun laga gaadho ma dabka xoog weynaa ma dadka dayacay ma dowladnimadeenna ay taal yarayd ma dadaal baan la samaynin ma waxa meesha yaalay baa baadrool ahaa inaynu baadhno oo dadka uga jawaabno waa su'aal kale su-aasha saddexaad dadkani way barakaceen gurigoodiina way ka baxeen hantidiina way ka baxday tiradoodii inay sugaan yaa laga doonayaa ma dowladda hoose ma guddiyadii iyagu ay samaysteen imise nooc oo dadka abay u qaybsanaayeen hadday qaar ahaayeen kuwii guryaha dowladda sharciga u haystay kuwo kalena ay ahaayeen kuwii maxaan idhaahdaa guryaha brifatka dhistay ee lahaa kuwo kalena ay ahaayeen kuwii meesha waddooyinka lagu sheegayo fadhiyey ee dallaayaduhu uga samaysnaayeen kuwo kalena ay ahaayeen kuwo bacadiyaaloo kaariyoono saaran dadkaa tiradooda inteed ku qiyaasaysaa weli suxufi qiyaasay maan arag ama baadi doonoo soo sugayba ama arkiifiya dowladda hoose leeday ka baadi doonay ama guddiyadan xog ka raadiyey waxay fududayn lahayd wax fara badan xitaa qofka qaadhaanka bixinaya ayay u sahli lahayd fahamka culayska dalkii iyo dadkiiba haysta su-aasha kale waa markan dambe dadkii hadday caawa barakaceen halkeebay yaallaan waxay yaallaan luuqyo yaryar oo aan qaadaynin oo maxaa ka dhalan karaa caafimaad darro oo maxaa ka dhalan karaa caburka isku cabursan yihiin karoonihii bal ka warrama karoonihii miyuu inaga dhammaaday halkay ku nool yihiinna waad aragteen cidi dadaal ma ugu maqan tahay qaarna waxay yaallaan meesha la yidhaahdo ii sheeg dooxa cirkina waa kan daruurta leh maarajna waynu joognaa oo roob uu di'i karaa berrina daad baa qaaday baynu odhan karayna su-aasha kale waxa weeye hadday waxaasi sidaa u dhaceen ta dadku idinka sugaya inaa uga jawaabtaan maxaa loo odhanayaa xisbiye mucaarada ayaa murmay maxaa loo odhanayaa maayar baa xil laga qaadayaa maxaa loo odhanayaa wasiir howlo guud baa xil qaadaya maxaa loo odhanayaa madaxweynaha xil boobaya maxaa loo odhanayaa waxaasoo dhan idinkay ahayd ummadda inaa uga jawaabtaan laba su'aaloodoo keliya sharcigii ilan waa haysaanoo xeerarkii waa haysaane sharci yaqaano aa waraysataanoo cuskataanna waa haysataane inaad dadka u iftiimisaan sharciyan mas-uuliyaddan dadkiyay ka sugayaan inay wax ka qabato cid walibana intee in leeg bay ku leedahay oo haddii caawiyo berri aynu isku haysannoun halkani naqshad bay u baahan tahay iyo uma baahna oo anigoo maayar ku-xigeen ka soo ahaan jiray anu maayar ku-xigeen baan hargeysa ka noqday xogeeyo dowlad hoosaan ka noqday 3 darajo ugu sarreeya midun baanan noqon labada kaleba waan noqday waan garanayaa meeshan yar naqshada alla naqshada ay u baahan tahay ma jirto 6 wado ayaa sidaa u maraa 4 wadana sidaasay u maraan intaa in ka badan oo qaadi kartaana ma jirtaba laakiin waa la deganaayo dadkii deganaa uun baa aqalla in aqalladan looga dul dhiso
u baahan wax weyn oo kaloo jira xataa iyaga imika haddii dadka dhista la yidhaahdo iidda way ka gaadhsiinayaan baan ku laakiin isjiidadkan waxaan is leeyahay cid baa ku raad gadanaysa anigu ciddii imika uma jeedo umanaan kicin fariin kale inaan idin faro anugu waxaan idinla hadlayaa anigoo saxufiya oo ahaan jiray baan idin leeyahay kaalintiinnii qayb baa qabyaa canaanna idinkumanaan yeedhin anigu martiban ku ahay sidiinna halkan idinkumu yeedhin musharaxu canaane mahadnaq maabuu idinku yeedhay laakiin anigu waxaan doonayaa inaan isidhaahdo meel intan ka badan oo ay ku urursan yihiin baryaha malaha lamaad kulmine u sheeg idinku qaybta a ku leediin ee baadhitaanka gala ummadda kala furta golaha deegaankee la doortay markaan qaylinayno caasha gaaroo noo hayaa ma jirto xukuumaddana eryasho gaaroo noo haysaa ma jirto laakiin waxaanu doonaynaa sharciga in la joogo taasi waa mid dalkeennii mushkilad kalaa ku soo korodhay oo dhaqanna waaba iska noqda maalin walba ishiuga yaree kalee jira ayuunbaa lagu wada mashquulayaa sida loo dhan yahay wax allo wixii kaloo dhan waa leeloobayaaba wax allo wixii kaloo dhan waa leeloobayaa su'aalahaas inay dadku isweydiiyaan iyo inaan la iloobin iyo in meelun shurrug la yidhaahdaa waxay idinka idinku tahay caqabad subaxii waxaa idinku dhacaysa war la'aan ilaa hal meel baa ku wada kallaadeene warkina wuxuu idinka noqonayaa hal waroo keliya oo isu wada eg dabeetana tiifiyadiinnii iyo bayjajkiinnii iyo wixiinnii oo dhan haddaad mid aragto kuwa kale inaanu baytariguba kaa dhicin baad isku daysaa ila waad wada aragtaybe waayo wax cusub oo la curinayaa yar inaad wax curisaan baan jeclaan laha dadka ilaahay saxaafaddiisu mabaadi'da qofku wuu leeyahay xorna wuu u yahay xaqa aan leeyahay oo dhan baad leedahay xuquuqda aan leeyahay dooq baad leedahay waxaad leedahay mabda' ciddaad doontaa taageeri kartaa laakiin markaad qalinka hayso wuxuu kaaga baahan tahay cadaalad haddii qoladayada bilayskuna ay dareento inaad lacagta iyo bilayska u jajabantihiin iyaguna ay dareemaan inaad iska cadhaysan tihiin oo labada dhinacba idin eryadaan markaasaa saxaafad xalaala tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu